ayadoo dhawaan lagu wado inuu furmo kala fadhiga afraad kulankiisii koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta waxaa magaalada Jowhar soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle iyo wafdi uu hogaaminayo. Safarka madaxweyne ku-xigeenka waxaa ku helinayay xubno ka mid ah baarlamaanka Hirshabelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo Jowhar si weyn loogu soo dhaweeyay. Kadib madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle marka uu soo gaaray magaalada Jowhar waxaa loo soo galbiyay hoyga magaalada uu ku leeyahay halkaasi oo warbaahinta uu kula hadlay Maxamed Sheekh Cabdi Xaandow gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellada iyo labada ku-xigeen ee baarlamaanka ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle ariya soo dhaweynaa u soo jeediyay. dhaweynay caasimada gobolka dowlad goboleedka Hirshabelle ee madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolka Hirshabelle Mudane Cali Guulaad Xuseen gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dhammaan xildhibaanadii iyo golihii wasiiradii oo ayamahan dhaweed u maqnay hawlo shaqo magaalada Muqdisho waxaan leenahay soo dhawaada way gurihiina ku soo dhawaada. mudane madaxweyne mudane gudoomiye waxaan filayaa maanta waad soo noqoteen horanku ku soo dhaweynay niyad fiican iyo qalbi fiican baan ku soo dhaweynay iyo waji furfuran shacbiga Soomaaliyeed oo halka jooga Hirshabelle waa soo dhaweeyeen ama gobolka Shabeellaha Dhexe ama Hirshabelle joogay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maatankiina waxaan leenahay soo dhawaada. Asmaan Bari Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo wafdiga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle uu hogaaminayay qayb ka ahaa ayaa ka hadlay waxyaabaha u soo qabsamay muddada ay ka maqnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxa uu tilmaamay in xaaladaha amni darre ee ka jira deegaanada magaalada hoos yimaada wax weyn laga qaban doono. mar labaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo noqono xaruntii Hirshabelle annaga kullu shaqaan ku maqneen iskama maqneen hadda iskama joogno سفر كلا كم مغنين لا سفر شقة يعني كم مغنين إن شاء الله تعالى وحنا نقول مد وحوين وحيتها إن مدحوينها يا أندين دونا أمني وحلاق قبته. ugu dambeyn Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay in xaaladaha amni darre ee Hirshabelle wax badan laga qaban doono isla markaasina ay jiraan qorshooyin kala duwan oo ku aadan amniga madaxda qarankan ay kala soo hadleen isla markaana lagu dhaqaaqi doono. mudane gudoomiye ku-xigeen dadaalkiina shaqada qabateen waa idinka mahad celinaynaa annaga sidaad ogeedeenba maalmahan howlo shaqaan ugu maqnayn Muqdisho baarlamaanku fasaxo ku maqnay guud ahaan laakiin annagu waxaan ku maqnayn howlo gaar ah oo qoseeyo Hirshabelle howlo shaqaan ku maqnayn alxamdulillah waa meel fiican ay maaragtay noo soo martay madaxda dalka ugu sareyso madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha guud ahaan maaragtay madaxda federaalka waa la soo kulanay waxa ugu badan oo kala hadlaynayna waxay ahaaday amniga dalka guud ahaan gaar ahaan Hirshabelle. Cabdifataax Axmed Maclow Bulsha TV Jowhar.